xilliga ay soo baxday iyo kadibba maxay ku soo kordhisay suugaanta Soomaalida qisadan maanafay suugaanta Soomaalida wax weyn bay ku soo kordhisay bariga hore sheekooyin gaaban waa la qori jiray sheekooyinka Soomaalida xilliga sida loo qori jiray waxay ku soo kordhisay hab horumar xoog leh waxay keentay in la qori karo qiso ama sheeko dheer fariimo wax ku ool gudbinaysa farshaxanimo iyo qurux aan laga xiisa goynayna leh marka dhiiranaan waxay u noqotay xiisa in dadku akhristaan bay abuurto la xiiseeyo halkii marka ay jireen kuwa Talyaaniga iyo af Ingiriisiga iyo af Carabiga laga akhrisan jiray in Soomaaligana la xiiseeyo qisooyin Soomaaliyeed la xiiseeyo dadkii hibada lahaa inay istijaabiyaan oo yiraahdaan adna waad qori kartaa oo laga xiisa goynayo ayay marka dhinaca wax weyn bay ku soo kordhinaysaa waxa kale ku soo kordhisay masraxa ama riwaayadaha Soomaalida jiray oo mashaakilka bulshada wax ka soo qaadan jiray way koobnaayeen waqti kooban oo 2 saacadood ama 3 saacadood haddana markaas waxaan qornay meesha loo kala oo in badan oo kamid ah haddana ah hab tix ah geeraar ama gabay lagu soo gudbinayo oo laga yaabo dad badan fahamkooda inay noqon ama hees ah oo laga yaabo qofku heesta luuqda iyo muusiga inuu kaga mashquulo tan tiraab yar oo jilicsan oo fudud oo qof walba fahmi karo ayay waxay ku soo gudbinaysaa fariintii marka waa hab cusub oo aad iyo aad ma xidhayso waqtigii iyo goobtii masraxa iyo riwaayadda xidhaysa ma xidhayso iyadoo xor bay ka tahay si fiican bay noloshii oo dhan ama jilidu xataa say u soo koobaysay uma soo koobayso ilaa waa qalin waa fidinaysaa taasina wax weyn bay ka mid noqotay markaas waxaad arkaysaa marka inay kaalinta weyn inay xiisaynta xageedii iyo dhanka habka qoraalka sheekada qaybaheeda kala duwan mid gaaban iyo mid dheer qisadaba ha noqoto intaba wax weyn ayay ku soo kordhisay mowduucyadii si qoto dheer inay ugu baahan degto oo tusaalahan waxaan arkaynaa haddaad aragto suugaanta qaybaheedii kala duwaneyd riwaayadihii iyo masraxa ama gabayadii iyo geeraaradii la tirinayay ama sheekada gaaban qaybo kala duwan oo siyaabo kala duwan u sheegayeen laakiin ay ku soo goynayeen ayay qisadu waxay ku tusaysaa ay ka dhadhansiinayeen ayay qisadu waxay ku tusanaysaa nolosha isku wada xidhan waxyaabo sababay oo arrintan dhaliyay dhibaatadan laga sheeganayo way jiraan haddii dhibaatada aan wax laga qabanina dhibaatooyin kale oo ka risi dhalan doona way jiraan markaad arkaysaa hablayo hadmaad guursan doontaan dhibaatada ay ku muujinayso dhibaatadan waxyaabaha keenay iyo waxyaabaha kale ka sii dhalanaya ayay maanafay ku tusaysaa waxa kale oo idin jirtay 65kii riwaayada soo bandhigay Kaarabilaan waxaan dhihi lahaa sangu uu sameeyay riwaayadihiisii ugu caansan riwaayadii lagu aqoonsaday hadda magaceedu waan soo dhufay waxay ka sheekeynaysaa waa naag hablaha waa lamid waa waxyaabaha soo dhigtay waxa lamid ah tusaale ka soo qaadan karnaa tixdii ya xaas laga duub hadda helay ya xaas laga duub macnaha waa naag sida baydan shabeel oo kale hablaha gada okay marka qisadan waxay ku tusaysaa arrintan qof isagoo xun baydan shabeel iyadoo xun cirka kama soo dhicin laakiin barbaarin fiican ma helin dhibaatadii bulshadu عقدات بيكون لكن هو يدرس ما توصيصه وحي أو مركز تاجن ما يقول وحن كدوني ممكن تصدقني وحي كينسا حالة نوقف كجرو وحصار على حالة كار حدي عن يدا وحلاقة قبلنا ويبربرنيسا ما أنا فاهم بسكتين بربريسو فاضو مير أي سنتين بربريسو لشدي سي بربرنيسو بعد كده جرن كرت أيضا ما صدي كلات كبعساية وقارية تري أيضا وحكيش ويل يرى كبعساية اللي بعتها halkan waxay ku tusinaysaa dhibaatadiisu uu ku sheegay laakiin faadumay yaray waxay ku tusinaysaa dhibaatada laakiin dhibaatadan wixii sababay haddana inaan si yaro sahla iyada in wax loo qabto aan lagu xallin karin marka halka markaad eegto wax badan ayay ku kordhinaysaa qodobadaas oo dhan oo la isu keenay oo laga dhigay qayb weyn oo noloshii ah oo noloshii guud oo wada arkaysida ayay macnaha sheekada ayay sheekadu ina tusinaysaa marka halka waa dhinac ka aad u qoto dheer weyn marka dhanka aad fiiriso waayahay sheekooyin fara badan ku soo baxay af Soomaaliga runtii afka hooyo marka la yiraahdo runtii guul bay ahayd markii la qoray 70 ilaa wadii wixii ka dambeeyay sida aan filayo sheekadii ugu horeysay ee lagu qoray af Soomaali inay aqoon daro waa una jacaylka ee wixii ka dambeeyana waxay furteen macnaha runtii bal dhinac dhan bay furteen haddaba bal sheekooyinka kale ee la qoray hadii aad u dhabakashay kuwoodii ugu muhiimsanaa ama ugu muga weynaa iyo sheekada maanafay hadii la isbarbar dhigo bal
kaalintee bay ka geli kartaa marka haddii qiimeyn ahaan lagu sameeyo sheekada Maanafay sheekooyinkii la qoray ama ha noqdeen sheekooyinkii gaabnaa ee kala duwanaa ama kuwa qisooyinka iskaba koobnaa tira ahaan aad u yaraaba marka la isku dardaro yani xilliyaha kala horeeyaane marka la isku daro ana waxaan isleeyahay waaw laba sheeko adeegto iyo ayaan daran inta kulay muuqata waxa weeyaan waxay qaadanaysaa mudanta in la yiraahdo horyaalka sheeka faneeta Soomaaliyeed Maanafay inay noqoto magaca horyaalka sheeka faneeta Soomaaliyeed farshaxanimada marka loo ay iyo qoraalkeedu sidoo u qoran yahay iyo sidoo qofku uga xiiso goyneen waa qodob fariinta iyo nuxurka iyo dhumucda fariimaha soo gudbinaysa iyo bulshada faa'iidada u tari karto waa qodob xilliga la qoray oo una af Soomaaligu muddo dheer qornayn sheekooyin dhaadheer iyo qisooyin hore oo lagaga daydona ilaa moogtay qof buu kaga sii daydaa uu sii qurxiyaa waxa ku sii dara marka qodobadaas oo dhan la isku daro waxay qaadanaysaa mid walba inay noqoto horyaalka sheeka faneeta Soomaaliyeed